بسم الله والصلاة والسلام على سيد أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. maanta waxaad ku leeyahay shir jaraa'id kusoo dhawaada barnaamijkii cusbaa insha allah waxaad kusoo dhaweynayaa maanta qiso cusub aad ii haya. qisadan waxay ka sheekeynaysaa jinka kolleyba jinka saan ugu sheekeynayno mise kolleyba dad ka cabsi qabtid ha dhegeysanin. Marka sheekadu waxay ka bilaabantay barnaamijkan daawanaya beri aan yaraa ayaan tv ka daawanayay. Marka waxay ahayd barnaamij laga sheekeynaya jinka. Marka waxaa isku yimi muftiga jaamacadda ashar, ninka sheekha ugu weyn jaamacadda ashar oo dhan, iyo nin jinka dadka ka saara oo loo bixiyey karbaashe oo karbaashi jira jinka, iyo nin kalena wuxuu ahaan jiray nin maskaxda biniaadamka akhriya, iyo laba nin oo cilmi nafsiga ku shaqale oo dee cilmiga dee maskaxda iyo psychologiga intaa ka shaqeeya labay ahaayeen. Marka markay bilaabmeen ninkii muftiga jaamacadda ashar ee sheekha ugu weyn jaamacadda ashar oo dhan baa la weydiiyey, wuxuu yidhi maxaad ka aaminsan tahay? Marka dee wuxuu yidhi jinku waa dad makhluuqiina. wuxuu yidhi wamaa khalaqtu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun, dabadeed waxaa loo abuuray inay ilaahay caabudaan, wax kale looma abuurin. inta kale o dhan wax kale loo abuuray maybe dee bas dee koleyba labadaasaa la yidhi waxaa lagu abuuray inay caabudaan ilaahay. Marka laga soo booday wuxuu lama arki karo arrimo badan ku sheekeynaya. Marka ninkii jinka dadka ka saari jiray karbaashi loo bixiyey ayaa doonaya inuu hadlo. Marka dad baa tarabuunka meesha dad ku fadhiyaan dad baa kasoo kacay. Marka waxay yidhaaheen annaga waxaa doonayna u mahadnaqno ninkan oo kunina hawa mahadsan tahay ashaan arrimu noo sameeyey. Marka gabadhii ugu horreysay islaam bay ahayd oo kaleba hadashay oo tiri anigaa u mahadnaqaya. Markaasaa lagu yidhi waayahay u mahadnaqo de maxaa dhacay? Markaasay tiri anigu islaam baan ahay, keligii baa guri deganahay, sariirta hoosteeda eega waxaa arkaa nin mayta, kabarhka ayaa fura nin mayta arkaa, sariirta dhinaceega nin mayta arkaa. Marka wadaado badan baa u tegay siday iga saaraanoo mid walba igu akhriyay wuxuu igu yidhi waxba ma jiraan oo gurigaa taga mar walba waa arkaa. Markii ugu dambeysay sheekhan baa la ii diray karbaashe. Markii aan u tegayna wuxuu yidhi qur-aan buu igu akhriyay, wuxuu yidhi iska tag. Markaa waan bogsaday, saaca baa meesha kaga baxay. Marka markii dambena waan soo noqday. Markii dib nin baa yidhi anna please ii daaya chanskeyga. Marka isagana waa loo daayay. Marka wuxuu yidhi aniguna codkaygu isbedeli jiray, islaan tu oday tu inan yar tu gabadh yar tu mar walba codkaygu isbedeli jiray. Marka wuxuu yidhi wadaadadii oo dhan baa u tegay, dadka o dhan bay ku qosi jiray. Marka markii ugu dambeysay waxay noqotay in la ii yeelo dee laga dhigo caadiyo dee oo dadkii nagu qosqoslaya. Marka wadaado badan baa u tegay, wadaadadii dhammaan u tegay mid walba dee wuu daweyn kari waayay. Marka markii ugu dambeysay ninkan baa lai tilmaamay karbaashe. Marka markii aan u imaadayna dee waan ku bogsaday, wuxuu yidhi salaadaada tuko, qur-aan buu igu akhriyay. Marka markii dambena gabadh kale baa tiri please inan yar wadatay baa tiri anna ii daaya. Markii ugu dambeysay marka waa loo daayay. Marka markii loo daayayna waxay tiri inankayga beri buu maqhrib ka soo baxay, guriga ku soo noqday. Marka gurigii meeshu taabto olol baa ka baxayay, dab iyo olol. Marka dee inankii waalan gaadhay. Marka waxaa sir ka kaxay meesha. Marka markii meeshii ka kaxeeyey oo siri dee wadaadadii dadkii cilaajka u geeyey waa loo geeyey, qur-aan bay ku akhriyeen, waxba la samayn kari waayey. Marka waxay tiri tuuladii oo dhan baa ogeed arrinkan oo dee lacag nagu caawini jirtay si ina ku bogsado. Marka markii dambe aan dib u soo noqonnay. Markii dambe dhakhtarkaan keennay waxaa siri dee faa'iido ma jirto, waxaasoo dhan baa naga baxday lacaga. aan u tagno wadaad aan u tagno dhakhtarkii bay u tagtay. dhakhtarkii markay u tagtay dhakhtarkii dee dhiig baa laga qaaday. inankii waxa lacagaa fadhiso qoraaradii dhiigga lagu shubay tuumbada ahayd baa jabtay. markaasay yidhaaheen naga baxa, way eryeen. markii la eryey way soo noqotay. waxay samaysay garan kari waayay. nin kale ku yidhi waxaa jirta qolo jinka guriga ku jirta xidhaysa oo qoraarado ku xidhaysa. marka way yimaadeen qoraarado badan ba dhigeen. waxay dhahaan jinka buluuga ah, jinka casaanka ah, jinka wuruudiga ah, jin walba nooc walba waxbay sameeyeen, lacag badan bay ka qaateen. marka markay baxeenna inankii sidiiba kusoo noqotay, olol baa ka baxay meel walba. marka markii dambe wadaadkan baa loo tilmaamay, waxay tiri wadaadkan baa lai tilmaamay, waan u imi. markaan u imina wuxuu yidhi qur-aan buu ku akhriyay. ninka wuxuu yidhi guriga iska tag. inankiina uu bogsaday. marka meeshii saaca baa ka baxay. marka waxaa loo diiday dad kale, waxaa la yidhi ma jirtaan, intaas sheekada ku dhammaatay, xagaa lagu dhammeeyo. marka markii dib u soo noqdeen ninkii baa la weydiiyey, la yidhi war cilmigan xaggaad ka keentay? waxaa marka isagu qisadii ugu horreeyay uu soo qaaday. wuxuu yidhi ilaahay dadka awood buu kala siiyey. marka wuxuu yidhi nebi suleymaan cod garanaysaa dee ilaahay boqornimaduu siiyey. marka ninkaas nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa yidhi yaa ii keenaya carshigay balqiis mise kursiga dee boqortooyada ku fadhiisto ee balqiis lahayd yaa ii keenaya. marka nin xifriid oo jin ah
ninka ugu xog waaweyn baa yidhi wax ku keenay inta kursiga ka kaceen. Markaa nin kale baa yidhi oo kitaabka cilmi kale oo dad ilaahay cilmi baray ayaa yidhi aniga ku keenay kursigaaga inta aad ka ilbiriqsi baa ku keenay ilbiriqsi. Markaasuu yidhi ilbiriqsigii buu keenay. Markaasuu yidhi ilaahayow mahadda adigaa leh. Markaa wuxuu yidhi ilaahay baa dadka kale awood siiyey, mid walba awood buu leeyahay. ilaahay cod buu siiyey qofka inuu ka garbaasho jinkoo ka baqaan oo ka cararaan. marka haddii saasaa lagu yidhi. Markaasuu yidhi jinku waa qabiilo iyo reerooyin sida bani aadamka oo kale, qabiiley kala tirsadaan, abtirsi bay leeyihiin. Marka wuxuu yidhi way kala badan yihiin oo dad badan meel walba way degan yihiin. Marka wuxuu yidhi waa la xidhiiri kartaa, waxbaad samayn kartaa. Marka ninkii muftiga jaamacadda Azhar haystay baa yidhi ma dhici karto, waxaas waa been, lama xidhiiri karo. ilaahay wuxuu ka dhigay dadkan jinkan wuxuu ka dhigay inay noqdaan bisado iyo ay iyo madow iyo xasas ka dhigaan. marka intaasun baa lagu arki karaa. marka waxaa la yidhi dee iska ilaaliya. marka muran baa meesha ka dhacay. marka wuxuu yidhi dadku way la xidhiiri karaanoo si walba way la xidhiiri karaan. marka wuxuu yidhi anuma doonay intii sheego si qofna ula xidhiirin. marka way ka boodeen. waxaa loo tegay nin kale meesha fadhiyay oo yidhi maskaxda bani aadamka akhriyaa. marka maskaxdii bani aadamku akhriya baa la doonaya la ogaado. marka lagu yidhi maskaxda bani aadamka qof walba akhrin kartaa. haa waa akhri karaayo samadi. marka gabadhii way ka bootay. waxay tiri waayahay ninka kalea weydiin doonaa. marka waxay tagtay dadka cilmiga bartay ee la yidhaaho psychologiga iyo maskaxda iyo bani aadamka iyo waxaas oo dhan oo dadka daweeya, maskaxda ka daweeya. marka waa la weydiiyey kii ugu horreysay wuxuu yidhi cilmiga bani aadamka intaas ku istaagay. marka kii labaad baa la weydiiyey. kii labaadna wuxuu yidhi waxa weeye waa magnet, waa radio kale, radioga telefoonka dadka ku kala gudbiya iyo satellite-ka waxa qabsada intaa un weeye. marka waa laga soo booday. marka gabadhii ninkiiba soo noqday yidhi maskaxda bani aadamka akhriya. markaasuu ku tiri qof walba maskaxdiisa waa akhri kartaa. markaasuu yidhi haa. markaasuu ku yidhi xataa ninkan karbaashe, ninka jinka dadka ka saara, haa buu yidhi. marka ninka karbaashe la weydiiyey. nin karbaashe wuxuu ma dhici karto inuu maskaxdeeda akhriyo. markaasaa lagu yidhi hadduu akhriyana. markaasuu yidhi hana dee gacantiisa joojinaya. marka meesha waa lasoo istaagayoo ninkii baa yidhi waayahay ishe. markaas ninkii karbaashe ayaa yidhi bal wakaase haddaad gartay maskaxdeeda wax ku jira ii sheeg. markaasuu ku yidhi dee ciyaar ma doonana ciyaarno, adigu horta waxaad samaysaa inaad waraaqad ku qortay. markaasuu yidhi waraaqda waad arkaysa markuu qoray. markaasuu yidhi waa sii jeesanaya. wuu sii jeestay. markuu sii jeestayna dee wuu qoray ninkii waraaq dheer buu qorayay. waxaa loo eegaa inuu wax badan qorayay. marka wax badanna muu qorin. marka kolleyba uu laalaabay waraaqdii. ninkii baa la soo jeestay. markaasuu saa u eegay indhihiisii dhowr shir buu ilbiriqsi dhababab. markaasuu yidhi waxaa ku qoran kelimad aad iyo aad u dheer. marka wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah baa ku qoran. marka meeshii yaab. gabadhii baa tiri waraaqda ninkii ii dhiib. marka waraaqdii soo saartay kamradii u soo dhaweysay. marka anigu markii arkay kursiga ka dhex gaadhay. marka waxaan sii dahooday xasiir bal ogow meeshii ku dambeysay sheekadu. marka ninkii uu yaabay wuxuu yidhi anna dee gacantii joojin kartaa haa. markaasuu yidhi anna waa joojinaya. karbaasha yidhi gacanta ninkii maskaxda bani aadamka akhriyay buu waa joojinaya. gacantiisii buu qabtay. marka markii ugu horreysay qur-aan buu akhriyay. qur-aankii markuu akhriyay wuu istaagay. marka wuxuu yidhi gacantaada dhaqaaji. ninkii dee maskaxda bani aadamka akhriyay gacantii dhaqaajiyay u boodbooday. wuxuu yidhi waad keen kari weeday, waad joojin kari weeday gacanteedii. haa. markaasuu yidhi 3 jaanis baa layahay. 3 jaanis haddaad samayn kari waayo marka waad iga guulaysatay. marka markii labaad qur-aan muu akhrin, wax buu akhrinayayoo xashuushuq oo kale ah oo degdeg u akhriyayay. marka wuxuu yidhi dhaqaaji gacantii. ninkii ilbiriqsi baa kasoo haray ninka maskaxda bani aadamka akhriyayay. ilbiriqsi markaasuu gacanta ka dharbaaxay. wuxuu yidhi waan guulaystay. marka gabadhii way yaabtay. meeshii dhan qeylaa ka yara baxday. marka waxaa la yidhi ninka baa loo noqday jaamacadda Azhar, caalamka ugu weyn jaamacadda Azhar ee Masar ku taala ayaa la weydiiyey. marka wuxuu yidhi ilaahay iyo rasuulkiisa og, allahu warasuuluhu aclam. marka waa la soo noqday. waxaa loo yimaaday dadkii cilmi nafsiga yaqaanay iyo maskaxda bani aadamka ka shaqeeya. marka kii ugu horreeyay wuxuu yidhi cilmiga intaasu ku joogsaday sababtoo waa wax la taaban karo, waa wax la arki karo, waa wax la maqli karo. soo wuxuu yidhi intaas hadday ahayn anagu shaqo kuma lihin. marka waa laga booday. waxaa la weydiiyey ninkii labaadna wuxuu yidhi anagu wax sheegayna caqliga bani aadamka wuxuu sheegaya inay labadan nin dibadda kusoo heshiiyeen oo filim noo sameynayaan. marka ninkii maskaxda bani aadamka akhriyay baa yidhi wallaahi ma aqaano, dhaar buu meesha ka boodboodayay. markaasuu ku yidhi anigu ma lihi waxa been baad sheegaysaan. base wuxuu yidhi maskaxda bani aadamka ilaahayna siiyey wuxuu leedahay riwaayad inay tahay ayaa ka fiican inaan rumaysana waxa. markaas anigu qosol baa u dhacay. sheekadiisaasaa u biliif gareeyey. marka way u soo noqdeenoo dee sheekadii markaa intaas ku dhammaatay qosol iyo waxaa markaa barnaamijkii saas u dhammaaday. marka aniga naxdin baa haysay inan yar baan ahaa.
maana ogeen waxaas kuleyba ma ahayntee lama ogola intee qof inan yaroo carruura inuu waxaasoo kale dhegaysto masdiifiyadiida berigaa way cusbeed inama ogeen marka waa iska dhegaysanayeen marka aniga waxaad ku leeyahay ilaahay awood buuna siiyey caqli buuna siiyey cilmi buuna siiyey kitaabka ilaahay baa soo degay oo ka cilmi weyn wax walba marka suuliga gelisidna waxaad akhrisaa waxaad tiraa allahuma innii min alkhubthi waalkhabaa'ith ayaa la yidhaahaa marka insha allah aad iyo aad bay mahadsanyihin dadkii share iyo subscribe sameeyey waliba gaar ahaan reer gaarisa aad iyo aad bay mahadsan yihiin marka waxaan ku leeyahay aad iyo aad baa mahadsan tihiin ilaahay khayraad siiyo marka insha allah dad qisada matee ciddii daawatay videogaas oo kaleeta ii sheegtay meesha video ku yaalan camir ku doontaa aad iyo aad baa mahadsan tihiin shir jaraa'id cusub insha allah soon aad iyo aad baa mahadsan tihiin asalaam